haddaba wafdiga Itoobiya waa hadallada uga qayb galay oo Addis Ababa yimid mar uu ka hadlay taliyaha hogaaminaya wafdigaasi Burhanu Jula ayaa waxa uu qiray oo uu yidhi labada dhanba way jiraan kooxo diidan heshiiska nabadeed waxay u baahan tahay buu yidhi in lala halgamo ma jirta meel ay isku qabteen buu yidhi kooxa nabadda diidan iyo kuwa nabadda doonaya oo ay guushu raacday kuwii nabadda diidanaa waxaa sidaasi markaa yidhi haddaba Burhanu Jula taliyaha ciidanka Itoobiya isagoo markaa ka soo laabtay Nairobi shirkii ka qayb galay waxaanu sheegay hadda kadib in halgan iyo mugtay gacan adag ay qaadayso xukuumaddu si ay u hirgelisay heshiiskaasi haddaba labada dhan ee diidan heshiiskan uu sheegay markaasi Burhanu Jula qayb waxay lidwaa TPLF ka tirsan yihiin dhanka kalena waa qowmiyadda Axmaarada iyo Eritrea la socota oo axmaarada iyagu galka ayay seefta kala baxeenba waxay leeyihiin markaa ma aqbalayno in laga wada hadlo wadahadallada markii la xusay leeyahay raaya iyo walqaayad baa lagu qaybinaya gebi ahaanba gaashaankay ku dhufatay axmaaradu madaxweynahooda Yiilka Kifaala dhowr jeer buu ka hadlay yiri waxaas wax dhici kara maaha khadka cas buu noo yahay ama khadka cagaaran ciddii kasoo gudubtana markaa waa cid ku ciyaaraysa holac buu yidhi dhinaca kale waxay warbaahinta markaasi badan dhinaca maamulka axmaaradu isla dhex marayaan abaabul xoogan oo markaas dagaal ka dhex muuqdo iyaga oo sheegay inay dhimasho ka doorbidayaan in walqaayad iyo raaya markaasi laga qaado iyaga oo dhinaca iyo Tigreega loo wareejiyo haddaba waxa hoosta iyaguna kaga naban oo shidaya dabka waa Eritrea oo diidanba gebi ahaanba TPLF siyaasadda ay ku soo noqoto iyo maamulkaba waxaana sheegeen markaa inaan la aqbalaynin walqaayad oo markaasi daxadka Suudaan iyo Tigreeg ay wadaagaan weeyaan haddii ay TPLF heshay aaminsan iyagu xadkaasi Suudaan wadadaasi ay TPLF toos gacanta ugu dhigto hub kastoo casri halkaas loo soo marin doonaa waxaanu ka baqanayaa afweerku isleeyahay halkaasi ayaaba malaga uu kaaga dhow yahay oo lagaga soo dhacaya saa darteed il la furo oodaasi ayuu diidan yahay waxaanu hoos dabada ka riixaya axmaaradu leeyahay dhulkan idinka leh haddii moogtahay dee aad idinku duqomowdaanna waad bixin doontaan haddii kalena u dhinta ayuu ku leeyahay moogtahay ayaa la yidhi dabada ayuu ka riixaya axmaar oo dhan hadda walaa kuwii ku jiray dowladda walaa kuwii mucaaradka ah way midoobeen waxaanay taagan yihiin inaan walqaayad iyo humeera aan la bixinin oo dhimasho ka xigaan waxaana haddaba la sheegay tan inay tahay caqabada ugu weyn ka keenaysa heshiiskaasina inuu burburo keeni karta oo dagaalku dib u qarxa keenaysa waxay axmaaradu sanadkii ugu dambeeyay 2 sano ugu dambeeyay afweerka xoog ayuu soo tababarayay nimankaasi waxaanu moogtay galiyay dadaal badan iyo moogtay ciidan far badan buu soo tababaray safka hore dagaalka iyagaaba ka dagaalamay dagaalada ugu dambeeyay hadda socday axmaaradu waxa lagu yaqaanay xagga daba galaan laakiin se dagaalada dhimka ugu dambeeyay nimankii wacdaray dhigayaan sidii Eritreaanka ay dagaalamayaan waxaana la sheegay inuu juhdi badan soo galiyay afweerkii madaxweynaha Eritrea oo saaxiib dowla axmaarada maalin dhaweyd uu hadlayay afweerkii waa kii sheegay yiri axmaaro iyo markaasi Eritrea weligoodba walaalay haayeen buu yiri waxay haayeen laba moogtay qowmiyadood oo aad iskugu xidhan jecel oo sidoo hadalka u dhigay lamana kala saari karo buu uliya diirkeedu way cidii isku dayda inay kala saartana waxay la kulmi doontaa buu dirbaxaada isagoo markaa ka hawaramaya walqaayad weligeed lama siinayo Tigreeg ayuu leeyahay sarbeebaya axmaarana ma bixinayso anagana difaacayna ay ka dhigan tahay moogtay Eritrea difaacaysa haddaba laba qodob baa hadda moogtay cabsi weyn leh oo heshiiskan in socon waayo keenaysa qodob waxa weeyaan hubka dhigista TPLF waxa la yiri 30 cisho gudood waan hubka laga dhigaa TPLF ciidamada Tigreega haddaba ciidamada Tigreega hubka laga dhigay iyaguna waxay yiraahdeen maalintii dhawada Nairobi lagu shirayay shirkii ugu dambeeyay la kala saxday heshiisyada ma wareejinayno hubka yaga ilaa iyo intay Eritrea dhulka Tigreega joogto ha baxaan markaas ma anagu hubka wareejinayna waxaana hadda la haystaa waa waqtigu koobay waa 30 cisho 30 cisho ciidanka Eritrea lagaga saaraya Itoobiya oo yaani Tigreega lagaga saaraya ma TPLF hubka lagaga dhigaya ma dib u qaramayn baa la sameynaya xitaa waxay yiraahdeen markaasi Tigreeg way ku doodayaan TPLF to inaanay ciidan damaanada amaanka waxa qaadi kara bay yiraahdeen amaanka shacabka Tigreeg iyo madaxdoodaba ciidanka gaarka ee Tigreega in la sameeyo iyo moogtay ciidankii federaalka Itoobiya labadaas oo socdon baa anagu aaminayna bay yiraahdeen laakiin inta xaaladda isku qasantay hubka ma dhigayna bay taagan yihiin haddaba yaa Eritrea saaraya walqaayad horta laga saaraya oo moogtay sida u muuqato axmaaro way isku milmeen marka waxa weeyaan dagaal kale oo waji kale dilaacaya taasi oo ah Abiy iyo Tigreeg oo wada socda
oo markaa la dagaalami doono Axmaare iyo Eritrea ayuu la saadaalinaya imika inuu abid weerar ku qaadi doono markaasi walqaayad oo sharcigan fulinaya ay oran doono deetana sida ka muuqata Burhanu Jila hadalkiisana waxa uu sheegay laba dhinacba qolad way diideen laba dhinac buu in nabad hirgasho laakiin sharcigoon hirgelinayna buu marka waxaad ogaataa dagaal baa soo socda baa saadaashu tahay kaasoo dhex mari doona ciidanka Itoobiya oo waliba Tigreeg la socdaan iyo waa mucjise Axmaare iyo Eritrea oo wada socda oo iyaguna markaasi dhinaca marka dagaalkaasi ayaa hadda la saadaalinaya lagana cabsi qabaa inuu ka dilaaci doono galbeedka Tigreeg waag dhinaca kale hadaba heshiiskii TPLF iyo xukuumadda Itoobiya ay kala saxeexdaan ayay TPLF soo celisay laba qodob oo hadda cabsi weyn ku abuuray xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy TPLF ayaa waxa ay dalbatay in laba qodob laga bedelo heshiiska la galay labada qodob ee ay dalbadeen TPLF ayaa waxa uu yahay qodobka koobaad waa in la joojiyaa in loogu yeero dagaalyahanada TPLF laakiin waxa in loogu yeeraa bay yiraahdeen xisbiga TPLF qolyaha hubka dhigayana waa in loogu yeeraa bay yiraahdeen markaa xoogaga Tigreega ama xoogaga Tigreega ee hubaysan qodobka labaadna waxay yiraahdeen waa in la buriyo meesha laga saaraa qodobkii ahaa in dawladku meel gaar loo dhisayo markaasi Tigreega oo TPLF la kala dirayo waxay sheegeen marka maamulka jira in uu hawlahaasi si anba qaado in ay tahay ilaa iyo markaasi doorashooyin la qabanayo haddaba labadan qodob waa kuwa ugu miisaan culus waxa la sheegayaa inay tahay khiyaano cusub oo TPLF la soo baxday oo ay laba isku qaybinayso qayb duurka ka dagaalanta oo wali dagaalka sii wada oo marka xooga Tigreeg oo noqonaysa jabhad hubaysan iyo qayb siyaasiyiin oo miiska fadhiya oo siyaasadda Itoobiya jaangoynteeda ka qayb qaata iyo sida oo kale soo celinta gobolada maqan ee markaasi Tigreegu dagaalka ku soo celin kari waayeen oo hadda ay doonayaan hab siyaasadeed in lagu soo celiyo waa gobolada Walqaayad iyo Raaya goboladaasi ayay markaasi doonaysaa ay Axmaarada ku muransan yihiin in ay markaa hab siyaasadeed ay ku soo ceshadaan oo sida heshiiska ku taala heshiiskan Pretoria lagu kala saxeexday iyo kii Nairobi maalintii lagu kala saxeexday farsamada labada heshiisba waxa ku qoran markaa in la bilaabo wada hadallo la doonayo in lagu qaybiyo markaasi goboladaasi Walqaayad iyo Raaya ee ay Axmaarada iyo Tigreeg hadda isku hayaan waxaana daba la sheegay TPLF labada ujeedo ay hadda leedahay shaxdaasay soo degtay waxa la yiraahdaa anagu labaan nahay TPLF laba isku qaybisay waxa la yiraahdaa koox la yiraahdo xoogaga Tigreega oo kuwa hubka sitee dagaalamaya anagu ma dagaalamayna mid tageen dagaal la kamana qayb gelin kumana jirno xisbi siyaasadeed baan nahay bay yiraahdeen oo TPLF la yiraahdo marka waxay ugu baaqayaan xukuumadii Abiy shax waalan bay hadda la ciyaaraysa TPLF waxaanay doonaysaa in qayb jabhad haato oo wali dagaalkii halganka sii wado oo duurka ay ku jiraan kuwaasi oo markaasi Tigray Defense Force loo bixinayo magaca horeba boogtiinta dagaalka wadeen way jirtay laakiinse xukuumadda Itoobiya iyadu waxay u aqoonsanayd in gabi ahaan waxa dagaalamaya in TPLF iyo dagaalyahanada TPLF ay ugu yeerayeen xitaa heshiiskii Pretoria lagu kala saxeexday waxa ku qoran dagaalyahanada TPLF marka waxay ka codsatay marka TPLF yiraahdeen heshiiska dib loogu noqdo markii imka Nairobi dib heshiiska farsamo la sii qoreeyay hubka dhigista iyo soo xareynta ciidanka Tigreeg laga hadlayay ay yiraahdeen ka saara TPLF combatant dagaalyahanada TPLF ka saara meesha waxa tiraahdaa TPLF waa xisbi anaguna waxaan nahay yiraahdeen kooxaha kalena waa Tigray Defense Force waa xoogaga Tigreega haddaba si aanay waxa la yiri go'doon u wada gelin ciidanka iyo madaxda Tigreegu ayay sidoo kale labadan garab isku qaybiyeen waana shaxda halista badan ee imika sida weyn ku abuurtay marka xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy